لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين. halkan waxaan salaamayaa tulweynaha isugu yimid halkan oo ka shaqeynaya maslaxada iyo walaalnimada. waxaan kaloo ku salaamayaa tonka meesha jooga iyo dadweynaha meesha jooga, qof walba mansabka uu leeyahay iyo munaasabada uu ku fadhiyo. maadaama la yidhaah la soo gaabiyo hadalka ayaan faahfaahinta halkaas uga baxayaa. anugu abwaan maahi, laakiin farxadda ayaa waxaan jiray maxoogaa afriya ayay qalbigaaga ka soo tuurtay. laakiin abwaan hore anugu maahi. wuxuu ka hadlayaa xoogaa afrida ay ka hadlaysaa marka ugu horreysa dhibaatada dadkan ay ku soo jireen iyo waxa ay soo dhex yaaleen iyo waxa intaasoo sano ay ugu dhex jireen dhibaato ayna weliba garan waayeen qaabkay uga bixi lahaayeen. wuxuu yidhi wax dhanbaan dhiliyo colaad dhagaha soo haynay, wax dhanbaan dhibaatada halkaan dhawac u ahaynay, wax dhanbaa dhagar rabe dhulkaan dhila ka abuuray, wax dhanbaa khalad ragu dhinto dhigu goboley, wax dhanbaa khalad ragu dhinto dhigu goboley, wax dhanbaa gabayaan dheef lahayn dhagaha loo tagay, wax dhanbaa waxgaradkii dhulkaan dhaga laga qaday, wax dhanbaa dhohane ebera talada loo dhiibay, wax dhanbaa wildhaciyo dilwadaa biyaha loo dhaash, wax dhanbaa wildhaciyo dilwadaa biyaha loo dhaash, wax dhanbaa hanadadii dhulkaan dhiga laga dashay, wax dhanbaa neef la dhacay dartii boqol dhan la dugay, wax dhanbaa ruuxii dhaqaaqabaa baasdhac lagu siiyey, wax dhanbaa dhallaankiioo la dilay waalidkii dhalay, wax dhanbaa dhallaankiioo la dilay waalidkii dhalay, wax dhanbaa dhulwaa dhowrahayn fidkii dheelmaday, wax dhanbaa dheeman arooskeedu dhacay fidkii laga dhuntay, wax dhanbaa xareertii roobku dhigay cadowna dhaabsiiyey, waxaasoo dhibaataa way dhaceen dheefna lagu waayey, dhan kastoo la eegaba nabad la waa shay la dhaafsaday, dhan kastoo la eegaba nabad la waa shay la dhaafsaday. intaasi waa qaybtii hore oo ka hadlaysa dhibaatooyinka dadkan ay ku soo jireen iyo uurku taallada muddada soo daba taallay kuna dhex tiilay wax aan waxba ahayn, wax aan sagaara biyo ka cabin, hebel ma arki karo, waxa weeye wax aan waxba ahayn. haddana waxay qayb yar ka hadlaysaa nabadda iyo naburadeeda iyo hadda sida loo raad qaaday nabadda. wuxuu yidhi hadda sanabad baa la helay laguna naalooye, nuqulkii taarabe lagu akhriyey nala lagu gariyey, noloshii bandiraley lagu unkaa noqotay guul weyne, naxariis iyo walaalnimo macaan nudubka lo taag, naxariis iyo walaalnimo macaan nudubka lo taag, nidan bariya nuqsaantii caqliga ee banaga qadiyey, nuqulkii kitaabkiiyo waxyiga diinta loo noqoye, nabadoon culumiyo waxgaraad nabad la doondonye, nolol inaysan jirin laysla garay nabad la-aanteete, nadar waxay ku wada galeen inay nabadda raadishaan, nadar waxay ku wada galeen inay nabadda raadishaan. ayadoo aan ku sii dhex jiro nabadda iyo guwaabinteeda waxay haddana maraysaa dadkii sharafta lahaa ee ka shaqeeyay howlahan iyo sida ay wax uga qabteen oo ay ugu horreyso reer galdogob. golihii nabaddana galdogob noqotay goobteedii,
gar ilaa go-aan inay ka tahay geed harlay galabta waabeene go-aankii ugu wacnaa galdogood aya lagu gariye garnaqsiga walaalnimo xisaab guddiyo la sariye gaarsiin adoonkii gablamay xaqiis lagu go-aan qaaday godob tiriyaxa la kala gadoon laguna guulaysay galabtana waxaa ilaa gudban inaan garu duceeyay galabtana waxaa ilaa gudban inaan garu duceeyay godobtaas kuwii naga tiro libinku guulaysta gafanaha kuwii naga guro libinku guulaysta gurtigii guntiga u xidhay libinku guulaysta culummadii gobasha u dhigay libinku guulaysta keshkii gaarka nagahayo libinku guulaysta garabkii dhallinyarada u galo libinku guulaysta gabdhihii gardiskiyo gurbanka u wado libinku guulays gabdhihii gardiskiyo gurbanka u wado libinku guulays gaayihii bandiiraley iyo galdoor kuwii golaha nooday geel badan kuwii soo gowriciyo gabanow ariga gasi nafaqaysan iyo dheefbay golaha keenene gacalkii gobonnimada noo soorayo libinku guulays gacalkii gobonnimada noo soorayo libinku guulays golihii dowladaha nooga yimid gebi ahaantoodba guushii nabadbaad qaadateen waanad garateene gudashada xilbaad muujiseen guyahay magane garabkii siyaasadda noo galo libinku guulays garabkii siyaasadda noo galo xilka ku guulays xilka iyo macnaha siyaasiyiinta halkaa u jeceliin aad baan hambalyeelayaa waxaan leeyahay aad iyo aad bay umahadsan yihiin dadka sharafta leh waxaana leeyahay ha laga dhabeeyo waxa intaa lagu khasiray oo intaasoo dhibaato laga soo maray yaan kolley qof wuu isku dayi doonaa inuu jabiye qofkaas yaan raalli ka noqon qofkaas yaan raalli naga noqon qofka isku daya inuu jabiyo yaan raalli naga noqon aad baa mahadsantahay.